their activities in the area, particularly in Ethiopia. Ma ogtahay in Soomaaliya ay mar u dhawaatay inay guul weyn ka gaarto dagaal ka dhacay Geeska Afrika? sanadkii 1977 Soomaaliya iyo Ethiopia waxay galeen dagaal weyn oo loo yaqaan dagaalkii Ogaadeen. haddaba maxaa dhacay? maxay ahaayeen siraha qarsoon ee dagaalkaas? balan dib ugu noqono taariikhda. xaaladda dagaalka hor aynu isla eegno. xilligii 1970kii Soomaaliya waxay lahayd ciidan aad u xoog badan oo Afrikada geeskeedana ugu hubka casrisanaa. madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre wuxuu damacsanaa inuu mideeyo dhul Soomaaliyeed oo ku kala yaal Itoobiya iyo Kenya. dhanka kale Itoobiya waxaa ka jiray qalalaase siyaasadeed, hase yeeshee waxaa hogaaminayay markaa Mengistu Haile Mariam. bilowgii dagaalka bishii July 1977 ciidamada Soomaaliya waxay si lama filaan ah u galeen dhulka Ogaadeen. guulo degdeg ah ayay heleen, waxayna qabsadeen magaalooyin muhiim ah. dunida oo dhan waxay la yaabtay awoodda ciidan ee Soomaaliya. haddaba maxay tahay sirta isbedel ee dagaalka? wax walba waa ay isbedeleen. midowgii Soofiyeedka oo hore u taageeri jiray Soomaaliya ayaa si lama filaan ah ugu wareegay dhinaca Itoobiya oo markaas siiyay taageero. sidoo kale dalal ay ka mid yihiin Kuuba iyo Yemen ayaa ciidamo u diray Itoobiya, halka Soomaaliya ay kaligeed ku noqotay dagaalka. markii ciidamada shisheeye ee Itoobiya la safteen, Soomaaliya waxay la kulantay cadaadis ciidan oo xoog leh. silsiladan isku xiran waxa la yiraahdaa Burays, and this chain of mountains is called Gorges. ugu dambeyntii bishii Maars 1978 Soomaaliya waxay ku qasbanaatay inay ciidankeeda kala baxdo deegaanada Ogaadeen, taasoo sababtay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan inuu dalka hoos u dhaco. su'aashu waxay tahay, haddii midowga Soofiyeedku aanu taageerin Itoobiya, ma guuleysan lahayd Soomaaliya?